shirkadda caanka ee daabacadda buugaagta ee Hema Books ayaa xarun cusub ka furatay degmada Ibraahim Koodbuur gaar ahaan xaafadda Jigjiga ee magaalada Hargeysa waxaana xaruntani cusub ka warbixiyay maareeyaha guud ee shirkadda daabacadda casriga ee Hema Books Xasan Cali Maxamed waxaana hadaladiisii ka mid ahaa inuu saamaxay maanta runtii inaanu Hema Books shirkadda wadaniga caanka taqaaniin ay furto branch cusub ama laan cusub oo ay ka furto degmada Ibraahim Koodbuur gaar ahaan xaafadda Jigjiga yar maadaama ay Hema Books runtii ay ku jirto hawlaha ay qabato agabka waxbarashada iyo buugaagta ardayda iskuulaadka ay dhigtaan macaamiisheeda ayay runtii doonaysay in meel walba ay joogaan ay Hema Books u soo dhawaato si ay uga adeegtaan uga helaan agab waxbarasho tayo leh kana helaan buugaagta ardayda ay dhigtaan marka waa tallaabo runtii maanta aanu qaadanay oo aanu ku bilownay gobolka Maroodijeex inaanu ka furno dhowr laamood oo aanu gaarsiino Hema Books adeegeeda iyo agabka waxbarasho ay u baahan yihiin macallimiinta ardayda iyo iskuulaadka gaar ahaan iyo dadweynaha Somaliland oo dhanba runtii agabka waxbarasho aanu u keenay oo imakana runtii lagu sameeyay casriyeyn iyo qiimo jebin iyo tayeynba degmada aanu ka bilownay imaka maanta furitaanka oo bishu ay tahay February maalintana ay tahay maalinta labaad sanadka 2020 waxay noqon doontaa insha Allah taala xarun kamid ah xarumaha ama laan kamid ah laamaha Hema ay ka furan Hargeysa way soo socdaan insha Allah laamo kale oo meel walba aanu isku dayno insha Allah taala aanu gaarsiino buugaagta agabka waxbarashada iyo dhammaan adeegyada Hema Books runtii ay bixiso aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii inaanu joogno maanta laga bilaabo xaafadda Jigjiga yar amaba guud ahaanba degmada Ibraahim Koodbuur macaamiisheedan waxaanu leenahay soo dhawaada waxaanad heli doontaan service ama adeeg aad u fiican buugaag nooc walba u baahataan hadii ay noqoto KG ama barbaarinta ardayda yar yar la musta'an primary-ga dugsiyada hoose dhexe iyo secondary-ba dugsiga sare iyo akhriska guud iyaguna runtii ay yihiin qayb kamid ah qaybaha ay Hema Books ay idin hayso intaas oo kaliya maaha iskuulada waxaanu leenahay iyaga laftigoodana waxaan idin diyaarinay agabka shaybaarka ee lagu isticmaalo sayniska oo loo yaqaano science lab iyaga laftigoodana way heli karaan noocyo walba leh service-kaas oo kaliya maaha agabka oo la iibinayo laakiin waxaa jira consultation ama inaanu kala talayno qaabka loo isticmaalo loo design gareeyo science lab roomka ama qolka science labka lagu sameeyo iyo macallimiinta iyo lab technicians-ka iyaga laftigoodana ay la tababaro maadaama ay joogaan Hema Books khubaro ku takhasusay waxbarashada gaar ahaan sayniska iyo science lab-kaba Hema Books adeegyada ay bixiso kuma koobna runtii buugaagta iyo agabka waxbarashada waxa u dheer adeeg oo ah school consultations marka waxa weeyaan waxaana la jooga la taliyaal ku takhasusay educationka iskuuladana runtii kala talin kara wax alla waxay uga baahan yihiin runtii in ay iskuulkooda ay ku horumariyaan macallimiintana lagu tareen gareeyo loona dejiyo siyaasad iskuulka laga bilaabo ardayga intuu iskuulka soo galayo marxaladda uu ku jirayo waxbarashada iyo inta uu ka qalin jebinayo adeegyadaas oo dhan waxaad ka heli doontaan Hema Books ama laanteeda headquarter-ka ku taala suuqa gaar ahaan wadada number 1 ka loo yaqaano area-da u dhow garoonka Timacade adeegyada kale waxa laga heli karaa iyadana branchada Hema ay ku leedahay Burco Boorama iyo branchkan cusub maanta aanu furi doono insha Allah taala ama maanta inoo furmay runtii
ee xaafadda Jigjigeer degmada Ibraahim Koodbuur. shirkadda Hema Books ayaa muddooyinka u dambeeyay soo kordhinaysay daabacaado kala duwan iyadoo ay ardayda reer Soomaaliland ay ku reeyeen shirkaddani. Cabdiraxiin Axmed, wararka Bulsha TV, Hargeysa.